بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Your Excellency Governor, our Senator Haji, odayaasha kala meesha fadhaan, mawasiiri, MCyaalka way bixinaa u malaynahay, wadaadada, maamooyinka, dhalinyarada. Assalaamu calaykum. Waxaa u malaynahay ninkii heese muxuu dhahaa rag uu dagaalaa dawadeedna u heshiiyaa soo maaha. dad qaar heesaska dhegeystaana jira sheekh muxuu dhahaa rag uu dagaalaa dawadeedna waa heshiiyaa. marka carab iyo ilka isqoomaana dagaal had oo weyn oo ani abuki isdagaalna ma jirin. waxoogaa un carab iyo ilka isqoomaane sidan ay talad ku fiicantay sidan ay talad ku fiicanto maahay iska eedaa laga yaabaa. marka dadaal fara badan baa rag geliyay inaan u soo imaano maanta. raggaas way mahadsan yihiin dad fara badan. wadadaan mari waynay mar alla markaan wadad marayno hadallo ma nagula soo tuuray war seed ribtiin war maxay sidan oday aan saragno dhalinyaro saragno maamada in saragno. marka inikana naga raali ahaada waa idin dhibne intaas dhib weyn ay ahayd shaqadii ku halawde. waxaan rabnaa inaan naga raali ahaatiin insha allahu tacaala. waxaan ballan qaadaynaa hadda wixii ka dambe inay khilaaf ayna maqlin. shaqadii dadkiina aan u istaagno sidii nagala rabi aan ugu shaqayno insha allahu tacaala. dhaxdaan xiranaynaa waanan shaqaynaynaa wax badanna insha allah uu noo qabsoomi shacab ahaan gaaris ahaan haddaan nahay. midda kale waxaan ku daray waxaa wey ducada hanugula soo kaalmeeyo. ducada hanugula soo kaalmeeyo. ilaan madaxda waa loo duceeyaa laa soo maha. madaxda haddii la hawaaro hawaarka uu dhici ma ahee gobolkuu ku dhici waddankuu ku dhici. madaxda waa loo duceeyaa habeenkii alla istaagaa ilaahu madaxda hagaaji. madaxda haddaa hagaagto wixii oo dhan kale uu hagaagi. marka ininkana ducad nagu soo kaba inay maaragtay khilaaf dambe uu na dhexgelin. ilaahayna na waafajiyo wixii kheyr ku jiro abshirta ku jiro. insha allahu hadda wixii ka dambena toosaan u shaqaynaynaa. ninkan abookiya maanta maan soo imaano maahine mar hore aan iscafinne tolkiina aan u sheegno waan maaragtay maanta ilaa beryahan oo dhan aan ka shaqaynayne. wixii madaxay waan u warannay oo cidda ah. wixii oday waan u warannay dadka o dhan waan gaarsiinay. marka insha allahu tacaala hadal badan kale ma sii jiro. kulley beryahan nigaan dambe soo imaano shaqaas kugu imaano maan hadli doonaa. dalabagu soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin. arrinta maanta meesha isku kaankeesa waan idiin sheegay si fiican bay noogu dhammaatay khilaafka ugu dhammaaday. insha allah annakana waan dadaalaynaa khilaafkan inuu soo noqonin. midda labaad waxaan u malaynay annaka 2016 qoysnimaan sheeganay. bannaan intaan istaagnay baan nahnay tolomogaan nahnay wax baan doonanaynaa. ilaahay nuunuu kaalmeeyey waan helnay. maantana dawlad baana dawladdana waan ku idilna. waad ogtihiin annaka markii noogu dambaysay markii aan kambayn ku jirnay labada dhinac waan yaro qaybsanay oo waxaan waa un iskoongori. dad naga maqan baa jiray oo olihii aan wadnay aan ka mid ahayn. ayagana meel bay wax ka arkeenoo maanta wax eed aan ku eedayna ma jirto. badhowey waa idiin sheegay kuuraheenni haddaa sidii aan u qaybinay waan isku dhoweyn laakiin aad buu u kala duunaa. wuxuu ku kala duunaa ninkii markaa dawlad ahaa sambooda loo kala
sagaal kun oo kuuro ka helay oo dad annaka oo badan baa la socday anigana 11 kun baan helay waa kuuro aad u badan ilaa waxaan ku kala duunay sagaalkii kun asaga wuxuu ku helay dowladnimo xafiis uu fadhiyo dhaqaalo badan oo uu hayo dad badan oo hawo kaga jirto dowladdaasay inay dowlad noqon intaasuu ku helay ilaa 11 aan helay nin ay shili siiyey ma jirto walaalnimo yaan ku helay iyo tala aan u wada dhanay hadda maanta dowladdina waa annaka walaalnimadii shalay jirtayna maanta way jirtaa dowladdeennana waan ku wada dhimanay oo annaka ciidankii xagga naga jiray waxaa noogu weynaa deputy governor waa noogu weynaa oo xagga markaas jiray asagana dowladda buu ku jira maanta xagga baan ku wada dhannaa wixii badhaweyn inta ka socday wixii dan qaaday wax naga maqan ma leh maadaama tan ay dowladdeenna ay tahay nin maanta bannaankaa joogo oo shalayta ka joogo oo shalay baan gafay oo shalay baan suxun wax u arkay oo meel kale aan wax ka doonay nin le ma jirto ninkii shalay macaarad ahaa kii muxafid ahaa kii nala socday kii meel kale dan ka doonay meeshan baan ku wada idin laha dowladdana nin siduu rabay ka helay ma jirto laakiin magaceedii waan wada leenahay sabodalna maadaama ani sii waaqan ah samodal maanta meel fadhiyo oo leh dowladdan sidii aan rabay kama hedin ayadana ma jirto waa u simana dowladda ilaa qaybiska siduu yahayba waa wax adag oo adaad wax lagu dhiibo waxaa laga yaabaa si kale inaa ku soo baxo badhaway 2018 waxaan tegay Ethiopia meel waxaa jiraan siiwaq iyo samodal ay degan yihiin oo la dhaho bayaxow dowladda guryo ka dhintay 1500 oo guri nimanka cawdaan waa imaadeen waxay dhaheen meeshan waxaan ugu gumaysanayaan oo nafta noo keeneen niman maxaad cabdalle 1500 guriba ayaga qaateen bayna xabadoona namaysayn waxaan rabnaa 500 aad nooga soo celiso madaxweyne aad noogu sheeg oo annaga 500 aan ilaa ay kara kuna helaan kolba ay kaga badnaayeen baan umalayna anigu waxaan idhi nin waxa leh haddii si looga soo celiyo adagtahay waxaa ka fiican lay madaxweynahan idinku tago aan dhaho ninkan kun ha idiin dhiso madaxweynuhu u tego waxaa malay guriyuu hadda ayagan u dhisay markaa guryihii inta ka badan bay helay marka qaybta sidaas ay u adag taladii siyaasiga waa iskugu imaan doonaa waan la iswaraysan doonaa khasaarada 2016 maanta ka dambayso waxay ahayd annaka midnimadeenna jidinteenna magaca tolomoganimo waxaa damiinka ah allah raxmaan tuqi maxamed yuusuf xaji asagii maanta ilaahay baa qaatay nala ma joogo asaga siyaasiga meeshuu ka taagan yahay dad badan baa fiirsanaya oo lahaa sidan duqa hadduu ku taliyey meeshaa baan maraynaa annaga intanada maanta soo hartay weli waxa dad qaangaaray oo ma artay meesha la wareegay ma jirto waan qaangaari doonaa kullu inay beri iska goosatay baa laga yaabaa waxaan rabaa annagoo taa ay jirto inaad ogaatiin talo weyn inayna sugayso oo danteenne oo intan maanta noo dhexayso oo khilaafkan hadda aniga oo cabdidaqane noo dhexeeyo intii ninka idiin dhexayso in aan ka warhaynin baa jirta talana u baahan oo taladeedna sugayso waxaan rabaa inaad ogaatiin talo weyn inay idin sugayso meeshan manfaco iyo magac manfacadeeda waa taan idiin sheegay oo nin walba wax lama gaarsiin kara qaybkan uu isku ximi laakiin magaceeda annagaas ka lahayd aniga walbaxaar waxaa igu hayaa tolomoge inta maanta adiga aad kursi hayso ama madaxa u tahay ama tolomogenimada meesha ay ku burburtaa ani ceeb bay igu noqoni magaxumeyn igu noqoni laakiin talada waa mid idinkoo dhan idinla wareego idinla wadaago
إنكم بنا ميل ككيني كرتين وحن ربعنا دقاتين ثلاثة أيام إلى سويس أنا وحنا نكبر القاضي خلاف ضمير نوصل نقول إن هو هذا سعرنا إن هو هذا تشانه إن هو حلو ملك أهانه دنتنا عن بالمريض دوي حكوا أنا بحب بدينا ووجوبنا وما أنت أنا بوضي الأول سعرنا وإحنا قبل ما نكر مجلنا مريض ما كولا الواد ما زنتين سود هذا كمان صوب حي ملاحظي وقتي كوقاتين أريدن إلا دميو أديهم مهتنين أنا فعلي بانكاهي إني كنا عن أمريني عن كبر قادي إني لقصة نقولين أديهم مهتنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته